بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله قيمها بدن كسر دوادة أرداجينا. ما أنتوا حنكهل الدونا عادوين كدت كتاجرين تاه. سديد عادو وكونفع عيادك. وقت يدن ضمبه هرمر كان رش أفدي دنكستا وحفظوا ذاتين له حقستا أو قفك وباهي هي مركو وكجرو سفر كدسيد نلشيسا. waxaanad si fudud u heli kartaa talaabooyinka ay joogteeyeen dhammaantood dadka guulaha maaliyadeed gaadhay. Talaabooyinkaas oo ka caawinaya inaad hesho waayo aragnimo ay raadinteedu kugu qaadan lahayd waqti aad u dheer. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa 8 caado ama dabeecadood oo ay ka siman yihiin dadka taajiriinta ah. Lambar 1 akhri buugaagta si aad u dhisto caqligaaga. Waxaa jira caado ay wadaagaan dhammaan dadka hantiilayaasha ah. taasoo akhrinta buugaagtu waxay ka caawinaysaa inaad si fudud u barato waxyaabo kugu qaadan lahaa inaad jaamacad u gasho sanado badan. Daraasad dhawaan la sameeyay ayaa lagu sheegay in 85% dadka taajiriinta ah ay akhriyaan ugu yaraan 2 buug bishiiba. Waxaa tusaale u ah milyaneerka weyn ee Warren Buffett oo sheegay inuu 60% maalinkiisa ku qaato wax akhriska. Lambar 2 waxay samaystaan meelo kala duwan oo dakhli ka soo galo. Caado kale oo cajiib ah oo ay dadkaasi leeyihiin ayaa ah inaanay marnaba ku koobnaan hal il oo dhaqaale ka soo galo. Waxay markasta ku dadaalaan inay badiyaan ilaha dhaqaaluhu uga imanayo taasoo ay kula tacaalaan halista ama xaaladaha dhaqaale darro ee sida lama filaanka ah ku yimaada. ogowna haddii aanad lahayn wax ka badan hal meel oo dhaqaale ka soo galo waxaad hal talaabo u jirtaa saboolnimada. Lambar 3 waxay qorsheystaan lacagta ay ugu talagalaan inay isticmaalaan bil kasta. Waxay xisaabiyaan lacagta soo galaysa. Waxay sidoo kale ka fakaraan waxyaabaha ay u baahan yihiin inay lacag ku qarash gareeyaan. waxayna dejistaan miisaaniyad bileed aanay marnaba ka talaabin si kasta oo duruuftu u adkaato taasoo ka caawinaysa inay yareeyaan kharashaadka kaga baxaya waxyaabaha aan loo baahnayn. Lambar 4 waxay ku dadaalaan maamulidda iyo korinta lacagta si qofku u gaadho xirnimada lacageed waa inuu yeeshaa caqli fahmayo wax kasta oo ku saabsan lacagta. taasi waa sababta aad u arkayso qofka milyaneerka ah oo baranaya cilmiyada dhaqaalaha la soconaya wararka ku saabsan ganacsiga kuna dadaalaya maareynta lacagaha soo galaya si hantidiisu u kobacdo. Lambar 5 ha qaadan wax deyna. Caadooyinka kale ee dadka qaniga ah ay kaga duwan yihiin dadka caadiga ah waxaa ka mid ah inay necib yihiin inay deyn qaataan. Waxay ku nool yihiin nolol aan ka badbadis lahayn. Waxay iibsadaan wixii ay lacagtooda heli karaan. waxayna ka fogaadaan qaadashada deymaha bangiyada iyo culeyskoodaba. Lambar 6 dejinta jadwal maalmeed. Waxay ku dadaalaan dadkaasi inay qorsheystaan wixii ay maalinka qaban lahaayeen, xilliga shaqada, xilliga hurdada iyo cuntada. Waxay u kala horeysiiyaan hawluhu sida ay u kala muhiimsan yihiin. Lambar 7 ha ku bixin lacag badan inaad u muuqato taajir. Waxyaabaha ay ka fogaadaan dadka hantiilayaasha ah waxaa ka mid ah inay lacag badan ku bixiyaan dhar qaali ah, gaari qaali ah iyo wixii la mid ah. waxayna necib yihiin lacagta inay ku bixiyaan waxaan loo baahnayn. waxaanaad arki kartaa markasta Bill Gates iyo ragga la midka ah oo xidhan dhar caadi ah. Lambar 8 ha ku fakirin inaad degdeg u taajirto. markasta waxay qorsheeyaan oo dejiyaan hadafyo mustaqbalka ah waxayna qabtaan intii awoodooda ah sababtoo ah waxay fahmeen inaanu jirin qof si degdeg ah ku taajira wax kastana nolosha ay xilligooda yimaadaan. dhammaantiin baad ugu mahadsantiin la socodka barnaamijka intayna ku kulmi doono barnaamijka kan xiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.